bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada Saafi Channel oo aan kaga hadalno waxyaabo faa'iido u leh bulshadeena. Maanta waxaan idiin soo diyaariyey maxay ahayd saliidda timaha la marsado oo guriga aad ku samaysan kartid, aadna ka samaysanaysid saliido quality ah. marka saliidaha aan isticmaalay waa kuwan hadda halkaana idinka tusay. Waxaan isticmaalayaa coconut oil oo liquid ah. coconut oilka laba nooc waaye, midna waa biyo biyo, midna waa midda adag, midda biyo biyaha ah. Kan hadda waxa waaye castor oil oo organic ah. Vitamin E organic. waxaa kaloo u baahan tahay jojoba oil organic waa iyadana. jojoba oil timaha aadi ugu fiican tahay. kanna waxa waaye argan oil oo organic ah. waa ujeediin. waxaan ku daraynaa oo kale rosemary oil oo iyadana timaha u fiican, maxay to carafna siinaysa saliidaha markaan isku darno. iyo ugu dambeyntii avocado oil. avocadadan organic ma ku qorno, laakiin waa GMO free. marka waxaa lagu gadaa haddaa rabti inaad soo gadatiin Costco, dukaanka Costco laga helaa. saliidahan kale laakiin Amazonkan ka dalbaday online. marka hadda waxaan u baahanahay galaaskan si aan u cabirno saliidihii. miisaankaas yaraan isticmaalayaa. saliidda coconut oo biyo biyaha ahaydaan ka bilaabayaa. waxaa la yidhahdaa fractionated coconut oil. fractionated coconut oil haddaa u baahantiin Amazonka ka heli kartiin online. iyadoo organic ah ayaa jirta, laakiin hadda maadaama pandemic iyo wax jiraan, alaabtii Amazonka laga gadi jiray xoogaha waa yaraadeen, choiceka ma badna. marka tan hadda maanta organic ma aha, laakiin iyadoo organic ay jirtaa. marka 100 ml aan u baahannahay oo maxay to saliidan coconut oilka ah. waa ujeediin, waa cabiray 100 ml. waxaan ku darayaa 100 ml oo kale oo avocado oil ah. 200 oo ml ay isku noqonaysaa markaas. saliidahan aan isticmaalayo, baraanadan aan isticmaalayo kuma khasbanidin inaad soo gadatiin. almuhim waa inaad saliidaha coconut oilka iyo avocado oilka iyo jojoba oilka isticmaashaan, laakiin baraankay doontay ahaan kartaa, meeshay doontay ka imaan kartaa. laakiin ku dadaala organic inay ahaadaan. hadda saliidan aan ku darayo waa castor oil. castor oilka saa ogtiinba waa yaro culus tahay, marka wax badan kama isticmaalayna. iyada 30 ml aan ka isticmaali doonaa maadaama ay tahay saliid yaro culus. 30 ml halkaas waxaan ku haysanaa 230 ml oo saliid ah. hadda waxaan ku darayaa maxay ahayd jojoba oil. jojoba oilkan waa idiin sheegay waa organic. saliid waxa waaye u fiican timahana u fiican, wejiga naftirkiisa u fiican. saliidahan insha Allah marka aan isku dardaro oo sameeyo, timaha ayaad u isticmaali doontiin. aaday timaha ugu fiican yihiin. saliidan waxaan ka isticmaalay waxa waaye waa argan oil. iyadana 30 ml aan ka isticmaalay. waa ujeediin argan oil. argan oil waa yaro qaali, laakiin saliid aad u fiican oo timaha iyo wejigaba u fiican. hadda waxaan isticmaalayaa vitamin E oil. vitamin E oilka 2 ilaa 3 ml aan ku dari doonaa maadaama ay saliidan badan tahay. xoogaha 2 ilaa 3 mils oo maxay to vitamin E oilkan ku darayaa saa ujeediinba. marka maxay to saliidan waxaa kaloo u isticmaali kartiin timaha mooyaane, waxaa kaloo u isticmaali kartiin wejiga inaad make upka uga qaadaan. hadda waxaan ku darayaa waa rosemary oil. 10 ilaa 15 dhibcood rosemary oil ah. waa essential oil waa rosemary oilka. saliidan marka waa taas asaasay diyaar ku tahay. dhalan ku shubi doonaa. halkaasaan ka yaryaraysan doonaa insha Allah. laakiin waxaan kaloo idiin sheegayaa timaha keliya ma aha, wejigana waa marsan kartiin, especially marka aad rabtaa inaad wejiga make upka ka qaadaan oo aad ku kilin garayn kartiin. waa habka ugu fiican oo wejiga make upka looga qaado. in intaad saliidaas wejiga marsatid ayaad maxay ahayd suuf ku tirtiraysaa. intaad suuf yar qoysid ayaad wejiga ku masaajeynaysaa. make upka oo dhan ay ka qaadaysaa. 2 3 4 suufa isticmaalaysaa. waa ku celcelinaysaa ilaa make upka oo dhan wejiga uu ka qaado. marka hadda
saliidi waa noo diyaar dhaladaasi noogu jirtaa dhalada rabtiina ku shuban kartiin aniga dhaladaan saliida ka dhamaataan maxay to qaatay waxaan rajaynayaa inaad videogan aad ka faa'iideysateen oo maxay hayto aad saliidan aad isticmaali doontaan kagana maarmi doontaan saliidaha raqiiska ah qashinka ah suuqa yaala marka videogan hadaad ka faa'iideysateen tambis up subscribe garay wixii comment ah hoos ku soo qor waa mahadsantiin wassalaamu calaykum